بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. walaalayaal, halkan waxaan ugu soo gudbinaynaa ummadaha adduunka oo dhan baaqeennii koowaad, kaas oo aan ugu caddaynayno in annagu aan nahay jamaaco ka mida muslimiinta, jamaacadaasoo aad ugu murugtay kana walwashay waxa ay arkayso ama ay ka maqlayso hareeraha adduunka, gaar ahaan caalamkan nagu hareeraysan oo loo yaqaana dunida muslimka. 40 sano oo ugu dambaysay laga soo bilaabo 1973 waxaanu ahayn kuwa u kuurgala si qoto dheerna u daraaseeya xaalka ay ku sugan tahay ummaddaas oo ahayd maalin maalmaha ka mida mid ku nicmaysan ilaahay diintiisa, islaamkoodana ku dhaqangelisa noloshooda qaybaheeda kala duwan. maantana aan arkayna ummaddaasi caalamkana waa nala arkaahe in ay ku nooshahay xaalad aad looga naxo, iskhilaaf ayada dhexdeeda ah, akhlaaqdii oo ka burburtay, isdulmin, faqiirtinimo, dib u dhac dhinac kasta oo nolosheeda saameeya, iyo ayada oo iska raacaysa cadowgeedii oo ugu sii baaqaya inay ku sii socoto jidkii markii horeba ay ku hoogtay. 40 sana waxaa noo sii kordhaysay maalinba maalinta ka dambaysa ummaddaani caafimaadkeeda inuu ay ku jirto iyada oo u noqoto rabbigeedii, raallina ka noqota allaheeda abuuray samaawaadka iyo ardada, allahaas oo ah midka caalamkan dhan maamula, asagana awoodda keligii iska leh, sidaa darteedna xaq u leh